duuliye sare Cabdullaahi Weedow Maxamuud oo loo yaqaanay Weedow waa duuliye Itoobiya ay qabatay isla markaana ka soo baxsaday. wuxuu sanadkii 1940 ku dhashay degmada Buulobarde ee gobolka Hiiraan, wuxuuna wax ku soo bartay dalweynaha Ruushka. wuxuu xeel dheer ku ahaa gadgadoonka miiga asigoona hawada ku qori jiray Soomaaliya. dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ee 1977 wuxuu burburiyay dhufaysyadii xabashida ugu cuslaa, waxaana hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo garbaha ka galay xilli uu rabay in uu garaaco talis u dhawaa Addis Ababa. raadiyaha Itoobiya ayaa laga baahiyay in Soomaalida laga qabsaday miig 17 iyo duuliyihii waday, waxaana duuliye sare Weedow lagu amray inuu ku dego garoonka Debrecen. markii uu hubsaday inay cagaha dhulka saareen diyaaradihii galbinayay isla markaana aysan ridi karin gantaal ayuu xawaare ugu duulay hawada asigoo marba dhinac u rogayay miiga si aan loola helin rasaasta, waxaana lugta ka haleeshay mid ka mid ah rasaastii lagu soo riday. Cabdullaahi Weedow wuxuu diyaaradaha duulinayay muddo 20 sano ah, wuxuuna ka gaaray darajo ah ilaa iyo gaashaanle sare, waxaana la siiyay bilad geesinimo oo dahab ah. wuxuuna ku geeriyooday magaalada Muqdisho bishii Oktoobar 1984. dagaalkii 77 ciidanka xoogga wuxuu ahaa 35,000 oo u kala baxayay 23 guuto oo infantry ah, 9 guuto oo taangiye ah, 9 guuto oo madaafiicda ah, 4 guuto oo ciidamada cirka ah, waxayna ciidamada cirka haysteen 52 diyaaradood. maytuuni muudiray hadduu idinku gaylamo idinna aad guuxdaan maytuuni muudiray hadduu idinku gaylamo idinna aad guuxdaan guulaystayaalo heedhaan solaatowradee kare intay gaari karayaan. salaamullaahi calaykum. ku soo dhowaada taariikhdii laftii hura gaashaanle sare Axmed Xaaji Maxamuud oo loo yaqaanay Axmed Teerso. haddaba daawade, haddii ay tahay markii kuugu horraysay ee aad soo booqato janaalkan, ha iloobin inaad sabskraib garayso. mahadsanidin. gaashaanle sare Axmed Xaaji Maxamuud oo loo yaqaanay Axmed Teerso waxa uu ku dhashay Raaxaale oo ka tirsan degmada Jalaalaqsi ee gobolka Hiiraan. sanadku markuu ahaa 1935 yaraantiisii waxa uu ku soo barbaaray Raaxaale, halkaas uu ka bilaabay barashada qur-aanka kariimka. sanadku markuu ahaa 1950 ayuu ka qalin jibiyey dugsiga qur-aanka isagoo xifdiyey 114 qur-aanka kariimka. sanadkii 1956 waxa uu u soo ambabaxay Muqdisho, halkaas oo waxbarashadiisii cilmiga shareecada islaamka iyo tafsiirka qur-aanka kariimka uu ka bartay. isagoo waxbarashadiisii ku dhex jira ayuu sanadkii 1958 bilaabay dugsiga sare ee Iskuul Discipline Islamic, wuxuuna ka qalin jibiyey 1962 kadib markii uu ka qayb galay imtixaankii la dhex dhigay ardaydii Soomaaliyeed oo boqolaalka gaaraysay. ayuu ku gudbay darajo aad u saraysa, waxaana loo qaatay leeli sargaal ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxa uu waxbarasho u aaday dalka Masar sanadkii 1962 isagoo wax ka baranaya kulliyaddii ciidamada Qaahira, isagoo dalka ku soo laabtay sanadkii 1965 waxa uuna u dalaacay darajada xidigle, waxaana loo bedelay qaybtii 26aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee magaalada Hargeysa, isagoo loo magacaabay taliye horin ee ciidanka lugta. sanadkii 1966 waxa uu u dalaacay 2 xidigle. sanadku markuu ahaa 1968 ayaa loo soo bedelay dugsiga tababarka ee Bootiko oo markii dambe loo bixiyay Xalane si uu ugu qaato tababar abaanduulinimo. isla sanadkii 1968 waxa uu u dalaacay Dhamme, waxaana loo bedelay ururka taliska guud ee xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana lagu magacaabay madaxa waaxda ee hoggaanka saadka ee xoogga dalka Soomaaliyeed. sanadku markuu ahaa 1970 waxaa waxbarasho loogu diray dalkii la oran jiray midowgii Sofiyeetka kuliyadda ciidamada ee dagaalka ee magaalada Moscow, isagoo waxbarashadiisii ku dhex jira. sanadku markuu ahaa 1972 ayuu u dalaacay gaashaanle. 4 sano kadib markii uu soo dhammaystay waxbarashadiisii u socotay 1970 ilaa 1974 ayuu dalka ku soo laabtay isagoo wata shahaadada cilmiga militariga ee sare, isla markaana lagu maamuusay bilad sharaf waxbarashadiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan awgeed. bartamihii sanadkii 1974 ayaa loo bedelay qaybta 6aad ee Baydhabo, waxaana lagu magacaabay taliyagaaskii fadhigiisu ahaa magaalada Xudur ee gobolka Bokool, isla markaana waxa uu dalaacay gaashaanle dhexe bishii Julaay 1977
isagoo hogaaminaya ciidan lixaad leh wuxuuna ka qayb galay xoreyntii Soomaali galbeed isagoo dagaalkaas ku noqday gaashaanle sare Axmed Teerso isagoo dagaalamaya ayuu ku shahiiday buundada goday 16 Julaay 1977 isagoo lagu aasay isla goobta dagaalkii uu ku geeriyooday shahiidnimadiisii waxaa lagu maamuusay bilad dahab ah iyo darajada gaashaanle sare rabbi ha u naxariistee gaashaanle sare Axmed Xaaji Maxamuud Cusmaan Cabdulle waxa uu ahaa aqoon-yahay bartay cilmiga militariga intaasna waxa uu sii dheereed isagoo cilmiga shareecada islaamka yaqaanay luqadaha uu ku hadli jiray waxay kala ahaayeen luqadda carabiga ee uga baxay dugsiga sare iyo kuliyadda ciidamada ee dalka Masar sidoo kale tan Ruushka uu ku soo qaatay tababarkiisii ugu wanaagsanaa ee ciidan Axmed Teerso dadkii wada shaqayn soo dhex martay dhammaan waxay ku ammaaneen wanaag badan iyo nin dadka u tixgeliya sidoo kalena wadaninimo weyn ee ku jirtay wuxuuna madaxweynihii hore ee Soomaaliya rabbi ha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre ku maamuusay taalo uu u dhisay Axmed Teerso haddaba daawade waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan fadlan wixii tale iyo tusaale ah inoogu reeb commentiga maskax lagu dadaaliyo ilaan garasho waa maan muruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa